shaqo qaran waa barnaamij ka dhashay himiladii iyo hindisihii madaxweynaha qaranka Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi ee ku wajahna horumarinta iyo jahaynta dhalinyarada Somaliland taasi oo daba socota ballanqaadka xisbiga kulmiye madaxweynaha qaranka ololaha doorashooyinka ku galay maantana waa barnaamij shirgalay waxaana maanta magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka lagu soo dhaweeyay dhalinyaradii ka qayb galay barnaamijka shaqo qaran dufcadii labaad ee matalayay gobolka Gabiley dhalinyaradani oo muddo badan qarankooda u maqnaa ayaa maanta soo laabtay iyagoo ah kayd qaran waxaana halkaas ku soo dhaweeyay gobol sabku-xigeenka gobolka Cali Caase maayirka magaalada iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Axmed Cabdilaahi dhalinyaradani dufcada labaad ee shaqo qaran ee gobolka Gabiley ayaa halkaas ku soo bandhigay dhowlatusyo kala duwan oo la xidhiidhay tababaradii ay ku soo qaateen xarunta Dararweyne waxaanu ku leenahay madaxweyne waa maalinta kaliya ee ay shaqaysay wixii aanu soo baranay 16 sano iyo qalinkii aanu sidanay 16 sano waa maalintii kaliya ee ay shaqaysay shahaadadayadu keensatayna inaanu dalkayga aamino ee ka dufcadii ugu horeysay ee ka socota gobolka Gabiley iyadoo dufcadii koobaad ee naga horeysay ay ka socotay gobolka Maroodijeex laakiin anagu hadda waxaanu ka soconnaa oo ku saleysanahay waa gobolka Gabiley waxaana uu gobolkaasi ka hadlay taliyaha qaybta maayirka iyo barsaab ku-xigeenka oo la dardaarmay dhalinyaradani kula bagaadiyay dhamaystirka dufcada labaad ee barnaamijkan shaqo qaran waxaan maanta ku soo dhaweynaa ardaydii shaqo qaran dufcadii labaad ee Dararweyne ka soo baxday hadal badan kulay idin sheegmayno madaxweynaha idin dhameeyay shalay hadalkii si fiican baa la soo dardaarmay kulay intii aad joogteen wax badan baa ka kororteen oo aragnimo inkastoo rag mutacalimiintiina awal ba aqoon lahaa haddana kulay waxay idinka maqnaaba ka barateen dugsiga oo iyaduna u baahnayd inaad barataan sidii madaxweynuhu sheegayna ciidamada qarankaad ka mid tihiin markii la idin baahdo ciidankaydu diyaar ah tihiin ilaahay idinkana kuwii dalkooda iyo dadkooda u shaqeeya ee anfaca Allah idinka dhigo anaguna qalbi furan waan ku soo dhaweynaynaa sharaf way noo tahay inaanu halkan idinku soo dhaweyno anagoo ah maamulkii gobolka ee dhameystiran aanu ku soo dhaweyno dufcadii labaad ee shaqada qaranka ee gobolkan Gabiley waxaanu idin leenahay ku soo dhawaada gobolkiina waanu ku faraxsanahay inaad tababarkii soo dhameysataan idinkoo caafimaad qaba oo soo weeleeyay casharadii iyo tababaradii la idin siinayay aad iyo aad baanu idin soo dhaweynaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo fikirkan iyo barnaamijkan shaqo qaran oo wadankeena aynu rajeynayno inuu wax weyn ka bedeli doono kana bedelay moralkii iyo niyaddii dhalinyarta Somaliland wax weyn ka bedelay runtii hirgelinteeda lahaa waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa howlwadeennada barnaamijkan ee ugu horeeya agaasimaha barnaamijka shaqo qaran muwaadinka iyo inta la shaqeysa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dhammaan dhalinyartii kala duwaneyd ee ka qayb gashay barnaamijkan ee ka kala socotay gobolada Somaliland waxaan idin rajaynaynaa guul gobol ahaan aad iyo aad baan runtii idin soo dhaweynaynaa dardaaran sidaa uu taliyuhu sheegay madaxweynaha qaranka idin soo dhameeyay dardaaran iyo khudbad taariikhi oo hoga tusaaleyna oo ku filan in la wayleeyo buu runtii shalay toole idin jeediyay intaa waxba lagu dari maayo waxaan idinku baraarujinaynaa idin xasuusinaynaa sidii madaxweynuhuba sheegay inuu dalkeenu saacadanba dagaal ku jiro sidaynu horeba ugu jirnay dagaalka la xidhiidha arrinta COVID-19 waa dagaal caadiya waa cadow COVID-19 runtii dalkeena iyo dunidaba saameyn weyn ku yeeshay ilaahayna subxaanahu wa tacaala aynu ka weydiisanano inuu inoo sikhro waxaynu rajaynaynaa inaad qayb weyn ka ahaataan dagaalkaynu kula jirno xanuunka nolosheenii runtii ku soo duulay oo aad iyo aad aynu ugu baahannahay inaynu isu kaashanno sidaynu uga hortagi lahayn iyadoo aad dareensan tihiin wacyiga dadkeenna oo ay kala fog yihiin dhibaatada uu leeyahay xanuunkan iyo qaabka ay dadkeennu u weelaynayaan ama ay ula dhaqmayaan innagoo arkana magaalooyinkeenii iyadoo 24 saacadood guddidii hadlaso bahdii caafimaadku hadlaso cid kasta ay la hadlaso oo lagu baraarujinayo xanuunka iyo dhibaatada uu leeyahay haddana weelaynta shacabkeena iyo ku baraarugu inuu aad iyo aad u kooban yahay saa daraadeed hawshaas inoo taala oo aynu u baahannahay inaynu dadkeena noloshooda ku badbaadino inaad qayb ka noqotaan baan ilaahay idinkii rajaynaynaa
dadweynaha reer Gabileyna runtii anigoo fursadan ka faa'iideysanay waxaan ugu baaqanaa in insha Allah ta'ala waxa weeye arinta COVID-19 la xiriidha waxa ugu muhiimsan waa 4 qodob. qodobka koobaad waa in guriyaha lagu eekaado oo qofku gurigiisa iska joogo haddii ay ka fursan weydo keento inuu soo baxana inuu raaco nidaamka ay gudida caafimaadka ama bahda caafimaadka u sheegayso oo ah in afkana la xidho la kala fogaado lana faraxasho dadkeena wixii shaqo laga maarmi waayo u soo baxa ka wax iibinaya ka wax iibsanaya saddexdaa baa ugu muhiimsan waxyaalaha loo soo baxayo waxaan aad iyo aad kula dardaarmanaa inay waxa weeye joojiyaan isu soo baxa ama soo bixitaanka laga maarmi karayo wixii aan laga maarmayna inay shuruudaha raacaan oo ay afkana xidhaan kala fogaadaan farxashaan maanta inaad tihiin niman carbisan oo militariya oo haddii aad shalay arday kaliya ahaydeen maantana aad ciidanka tihiin oo sidii madaxweynuhu sheegay aad tihiin kaydka qaran ee ciidanka aad ka tihiin waxaan halkan idinku nimi waa soo dhoweyn inaan idinku soo dhoweyno gobolkiinnii aad ka tagteen oo aad ka maqnaydeen muddo 3 bilood iyo siyaado ah oo aad soo dhammaysateen barnaamijkii tababarka carbiska ee shaqo qaran run ahaantii maanta iyo maalintii aad halkaa aad ka sii anbabaxayseen faraq weyn baa idiin dhexeeya waxaan ila tahay inaad soo waaya aragteen inaad soo barateen dhallinyaro fara badan oo dhammaanba jamhuuriyadda Soomaaliland ka kala socota maanta inaad tihiin niman carbisan oo militariya oo haddii aad shalay arday kaliya ahaydeen maantana aad ciidanka tihiin oo sidii madaxweynuhu sheegay aad tihiin kaydka qaran ee ciidanka aad ka tihiin oo la idinku maantaba la idin tirsanayo runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha barnaamijkaasi midhaha dhalay oo iska daanasteexeenna cadowgeenni xataa ka markhaati furay inuu yahay barnaamij midho dhalay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa la xaaji telefishinka qaranka Gabiley.